magacaygu waxa weeye kaltuun No! No! horta soddooda horaa la yiri waxaa siido soddooda xabo ma siina waa shako ka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبركة نورية وإذا كان سؤال لي جودها مجال لسانود وقرينا ده channel كل سبتة سبسكرايب ده سيدو كلنا قبل الكفر سينا شير قري ولا وده صاحب ده سو قاعد ترى بدر قربت وحن دوب الناس سؤاله كسبسن مشرحني ماذا بل هذا شعب كل غير مجال لسانود قابك يوقف العليان نقرين مجاعة مجاعة تاحر حسين جامع وكسر نوري ميديا وانو waa nuuri aad ma masanta waxa jirtay su'aalo kala duwan oo aan weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada sidee baad soo waragtaa waa soo dhaweynaya welcome maalmahan waxa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka taadhigeeda waxa ku dhahaysa adiga xaaskaaga iyo adiga walaasha labadooda midkeebaad codkaaga siin lahayd lacag hadii ay musharax noqdaan horta waa masantahay nuuri وانا سؤال في عن هذا صدق سؤال شاس كل شخصي هانت حاسين له حاسكيga sababta noo raax sababta waxa weeye waa xaaskayga iyo qof kaliya murugo iyo farxad wada qaybsano marka inaan codkayga ku deeqo ugu deeqo waan soo dhaweynaya codkayga cid kale ma siiyo marka walaasha fariinta halka u dirnaa walaasha waxaan dirlaa kulli halii qofka dumarka waa ninka la joogo marka waxaan maanayaa inay dawladda codeyn la marka aan kulli ila islaanta codeynay ugu hore magacaygu Ashraf Cabdi Cabdullaahi Ashraf oo ku soo dhaw Nuuriye Media aad iyo aad baa ugu dhaw Nuuriye Media channelkiisa aad baa maasantay waxa jirtay su'aalo kaftan oo maalmahan aan weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada sidee baad soo waragtaa waa si fiican horumarka bulshada inay kamid tahay waana ku dhawahay waxa socday maalmahan musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka su'aal taadhigeeda waxa ku dhahaysa waxa basharaxan adiga sodohda iyo adiga hooyada labadooda midkeebaad codkaaga siinay sodohda iyo hooyada horta soddooda horaa la yiri waxaa siido soddooda xabo ma siina anigu hooyada waan siin lahaa hooyada de wixii waxaan leeyahay marka anigu codkayga waxaan siin lahaa hooyada oo soddoodaas ka maqnaato marka xaaskaaga maxaa dhigay xaaskeen waxaan dhigi lahaa de hadhow kale waa isdil lahayne xagga hooyada marka soo badnaa dhila aka talada marka xagga soddooda ugu jeedinaysa maxay tahay talada xagga soddooda ugu jeedin waxay leedahay kale soddoodu de ma taqaanaa dad badan ba iyadoo waxoosi caruurteedan bay waxeedu siinaysaa Soomaa ninka gabadheeda qabana iyadu badanka isma yaqaanin marka waxaan siin lahaa markasta aniga hooyaday iyo xaafadayda xilka ana iskale marade hooyaday hayso ugu hore magacaan عصام عمر عديسي وي عديسي ku soo dhaweey Nuuriye Media Nuuriye Media waxa ku dhawaay saaxib ma santahay waxa jirtay su'aalo kala duwan oo weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada sidee baad soo waragtaa yaa ku soo dhaweynaya saaxib ma santahay way maalmahan waxa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka way su'aal taadhigeeda baan ku weydiinna waxa ku dhahaysaa lacalla waxa basharaxan adiga walaasha iyo xaaskaaga labadooda midkeebaad codkaaga siin lahayd codkaasi ugu guban lahaa horta sidii maartay sheegay dadka su'aalaha isku sahaadka ma jecla kordhe in maartay la iska dhaxgeliyo laakiin sidii waa maartay la weydiiyo kala kordhe su'aashaasi waa su'aal adag marka codkayga gubi lahaa niyo midna ma siiyan de sodohdii iyo walaasha iyo xaaskaaga walaasha xaaskaaga sheegaysa ma codka walaasha iyo xaaskaaga de uu guban lahaa walaalle midna uma codeeyeen de waa laba daran mid dooro hadii noo codeey ay ku dhahan karo de noo mudun codee de walaal waa gubi lahaa iga daa midna ma siiyeen ya de sababta ku sheegay ma su'aal isku soo haada de ha kala hadheen hadii kala sidii la socodis la degay goreen magacay تيسير way tasiir oo ku soo dhaw Nuuriye Media اوكي waa ku dhawaa way waxa jirtay su'aalo kala duwan oo aan weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada waan gal horta sidee baad aragtaa ma sha Allah aad baan soo dhaweynaya si fiican baan arkaa horumar aynu gaarnay ayaan arkaa way waxa jirtay maalmahan ba waxa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka su'aashan adiga ku weydiinno waxa ku dhahaysaa waa su'aal taa qusaysa waxa sharaxan adiga xaaskaaga iyo adiga walaasha labadooda midkeebaad codkaaga siinay
anuu codkayga waxaan siin lahaa xaaskayga sababta noo sheeg sababta waxa weeye xaaskayga dee ibaanay siin lahay soo maaha dawaha waan jecelaha walaashii xaaskaygaan ka jecelahay dee walaasha waan siin lahaa walaasha waan u hambalyeyn lahaa iyada dee hambalyo weyn baan siin lahaa iyada hadhow waan ku garab taagnaan lahayd si kale ugu ololayn lahaa dee xaaskayga u jeeriyaa magacayga waxa weeye kaltuun ayaan yuusuf maxamed ayaanay ku soo dhawoowee nuuriya media waan dhowahay walaal waxaa jirtay su'aalo kala duwan oo aan weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada horta sidee baad aragtaa su'aalaha si fiican ha soo dhaweynay maalmahan waxaa socday musharaxiin kala duwan oo golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka taa dhiggeeda waxay ku dhahaysaa waxaa sharaxan adiga ninkaaga iyo adiga walaalka labadooda midkee baad codkaaga siinay walaalka baan siin lahaa sababta noo sheeg sababta dee walaalka wiiga la dhashay soo ma dhiig marka walaalka baan siin lahaa codkayga walaalka baan siin haddaan wada siin kara dhan wada siin lahaa laakiin haddii aan walaalkay u go walaalka baan siin lahaa walaalka baan siinay way ninkaaga ugu horreyn magacaaga waxaana la dhahaa axmed la dhahaa axmed way axmed oo ku soo dhaweeyay nuuriya media meel lagu soo dhawaada ma joogtid mana ma taagantay waa dhowna waaya waxaa jirtay su'aalo kaftana aan weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada sidee baad u aragtaa ruuxa saaxiib waxaan u arkaa inay macnaha ay yihiin saxdee la kaftamo wax la isweydiiyo marka waxaan ku leenahay dee hore u soco waaya su'aashaan ku weydiin waxa ku dhahaysaa maalmahan waxaa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka sax taateeda adigaba waxaa kuu sharaxan adiga walaasha iyo adiga xaaskaaga labadooda midkee baad codkaaga haddii ay ku sharaxnaan lahaayeen adiga xaaskaaga iyo adiga walaasha labadooda midkee baad codkaaga siinay dee xaaskayga siinaya walaasha ninkeeda leesa lacagte iyadu maalanta maxaad leedahay marka dee waxaan leeyahay dee anu walaasha ma siiya waxba wade xaaskayga siin la laanna waxay soo heshabaan ay gula soo noqonaysa walaasha ninkeeda leesa dee waa maxay marka anigu xaaskayga siin la marka xaaskaaga siiso walaasha maxaa dhihi dee walaasha waxaan dhihi lahaa dee walaal nimanka ku qabay talkiisa iyo codaa ku dheh ila ninka qaba tal buleeyay marka wixii waxaad dhihi lahayd xaaskayga aniga igala fogaan mayso warigala fogaan mayso wixii soo baxaaba waa ku haystaan waa intaa keliya aad baa mahadsantahay ugu horreyn magacaaga cabdinaasir maxamed cabdinaasir oo ku soo dhawow nuuriya media waa ku dhaway aad iyo aad baa mahadsantiin waxaa jirta su'aalo kala duwan oo aan weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada su'aalaha aragtidaada bal sidee u aragtaa waa caadi waad weydiin kartaan su-aasha ku weydiin waxaa ku dhahaysaa maalmahan waxaa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka su-aasheedaan ku weydiinaynaa waxay ku dhahaysaa adiga waxaa sharaxan haddii lacalla ay sharaxnaan lahaayeen adiga walaasha iyo xaaskaaga see baad codka siinay walaashaydii xaaskayga waxaan codka siin lahaa walaashay sababta dee haddeer walaashay matalanba haddaan codka siiyo xaaskayga dee walaashayna horta labadiiba dee nacay xoogan baa ku iban karaa laakiinse walaashay hadhowd waxay dhahaysaa si kale ayay u arkaysaa macnaha haddaan tan siiyana dee iyana waxay u arkaysaa si kale marka aniga fikirkayga ahaan waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo walaashay xaaskaaga markaa maxaa dhihi xaaskayga markaa si gaaraan wada hadli lahayn iyada adigu dee si hoosaadan yacni aan xalkan laga sheegi karaa macnaha baan wax u fahansiin lahaa iyada macnaha markaa way kaaga xumaan lahayd lacalla haddii markaa ay kaaga xumaato maxaad kula gudboonaan lahaad samayn lahayd maanigu markaas dee wixii markaa ii suurtagala ayaan samayn lahaa oo ah yacni waxaan isku dayi lahaa macnaha inaan wixii ii suurtageliya inaan yada yacni dejiyo dee haddii yacni ka xumaato matalanba inaan yadii yacni dee xaalado kale la galo oo dee si kale ugu ololeeyo aad baa mahadsantahay ugu horreyn magacaaga cabdiraxmaan abdullahi cismaan cabdiraxmaan oo ku soo dhawow nuuriya media waa dhowaa walaale waxaa jirtay su'aalo kaftana oo aan weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada horta sidee baad u aragtay su'aalaha aad iyo aad waan soo dhaweynayaa adiga nuuriya mediaba aad iyo aad su'aalahan inaan ka qayb galan jeclaa aad baa mahadsantahay su'aashaan ku weydiin waxaa ku dhahaysaa maalmahan waxaa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka taas dhiggeeda baan ku weydiinaynaa adiga waxaa sharaxan adiga hooyada iyo sadohda labadooda keebaad codkaaga siinay
dee aniga sodohda iyo hooyaday dee maxaa meelba laba qof wada dhigi karo maaha dee hooyaday waan siin lahaa waxaa dhacay waa beerkii aan ka soo go'ay dee markaa mar laba qofan adduunka saaran koomkiisa meel aan la dhigi karaa ma jiro soo maaha marka hooyaday waan siin lahaa halkan aad iyo aad baan uga salaamaya Sir Axmed Faarax aad bay kaaga qaaday waayahay haddii aad hooyada codka siiso marka sodohda hayada maxaa dhihi sodohdayna waxaan oran lahaa dhinaceedaan oran lahaa guulayso insha Allah codkaaga kaliya lagu taamiyey dee xagga sida kale aan taageeri lahaa maanaha codka hooyaday baan ku taageeri lahaa adiga xaaskaaga marka isku dhac miyuusan idinka yimaadin dee aniga xaaskayga kolleyba xaaskayga macnaha waxaan u malaynayaa hooyadeeda codkaan siin waayo hooyaday aan siiyey inaan isku dhacay marka hore waayo heshiis baanu aan labadayada aan ku heshiinay baan guriga ku wada dhisanay waa ku wada joognay soomaad garan marka dee maadaama ay xagga hooyada ka soo jeesato dee waxaan maleynayaa tii dheerada way taqaanaa tii dheerada way taqaanaa wayaad ugu horreyn magacaaga guuleed mahad walaal guuleed oo ku soo dhow Nuuriye Media wallaahi aad iyo aad baa ugu dhowahay waayahay waxaa jirta su'aalo kaftana aan weydiinayna bulshada ku dhaqan magaalada horta sidee baad aragtaa su'aalaha hadda waa soo dhaweynayaa dabcan way jiraan su'aalaha suul laakiin waa soo dhaweynayaa waxaa jirtay maalmahanba waxaa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka su'aal taateeda ayaan ku weydiinaynaa diyaar ma u tahay waaya su'aashu waxay ku dhahaysaa waxaaba sharaxan adiga xaaskaaga yaa walaasha labada midkeebaad codkaaga siin lahayd dabcan walaashay waaya waayo de mar kasta iyada iiga dhow xaaskayga walaashay iyadaan meel soo barbaarnay waayo dee xaaskayga hadda unbaa isbaranay sooma laakiin walaashay intaa ka hor baa isnaqaanay oo meel wax ku soo wada cunno soo wada jiibsannay dabcan way iiga dhowdahay xaaskayga soomaa waayahay marka iyadaad codkaaga siin lahayd iyadaan codkayga siin lahaa markaad iyada codkaaga siiso xaaskaagana marka maxaad talada u jeedin lahayd maanta xaaskaygina waxaan dhihi lahaa gadaal wixii ka soo kordhaa ayuunbaad leedahay adna dabcan haddii wax soo kordhaan waa dhankaaga markaa marka iyada wixii soo hadhay qaadatay markaa shoodhadeeda codkayga siinayaa ugu horreyn magacayga cabdalle maxamed cabdalle maxamed oo ku soo dhoweeye Nuuriye Media waan dhowahay walaal aad baan maasantay waxaa jirta su'aalo kala duwan oo aan weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada sidee baad horta aragtaa su'aalahan wadno wallaahi waan aad baan u soo dhaweynayaa su'aalahaas waxaan rajaynayaa kuwa dadku wax badan ka faa'iido inay noqoto madadaalo iyo magaranaysaayay adigu aad baan soo dhaweynaa dana shacabkana aad baa mahadsantahay su'aashaan ku weydiin waxay ku dhahaysaa maalmahan waxaa socday musharaxiin golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka taa dhigeeda waxaaba sharaxan adiga wiilkaaga curad iyo adiga walaalka labadooda midkeebaad siin lahayn codka wiil iyo adeerkii waxaan siin lahaa adeerkii waan siin lahaa de waa wax isaga u soo noqonayo waayo adeerkii hadhow de waa u soo celinayaa wiilka laakiin de wiilku waxa weye waa adeerkii ma sugi karayo marka si de qofka karaamo baa waxaan u siinaya walaalkay waayo de wiilkaygu waa wax kalaan la doonayaa matalan waxaa jirtay siyaasaddan hadda waxaa ku hirdamaya laba wiiloo isu adeera taa dhigeeda haddii ay ku looltami lahaayeen adiga wiilkaaga iyo adiga walaalka wiil iyo adeerkii maxaa talada dhex dhigi lahayd maxay inay isu tanaasulaan labadooda midkood inuu hadho hadduu hadhi waayo adeerkay ninka walaalahanay baan waxaynaya ninkan yar waa dib iska joogaya ninkan yar wiilkayga waa dib dhigaynaa ma las dhigi karaa waayahay waxaad u leexsateen adigiyo walaalka wiilkayga ii dhow soo maaha dhiiggayga ah waxaan uga leexiyey waxaa ka habboon inuu wiilka adeerkii inuu qabto meesha taladii mar walba isagay kusoo noqonaysaa isagay kusoo noqonaysaa waa wiil adeerkii meel kale mooda jira laakiin wiilku haddii la doorto waxaa laga yaabaa inuu wixii iska marorsado meeshana dee karaama darro iyo magaranaysa ay halkaa waalid xumayn ay ka dhacdo laakiin si waalidka loo karaamayo magaranaysa adeerkaa mudan